ciidda ciidulfidriga ayaa maanta si ballaaran looga dareeray tukashada salaada ciidulfidriga xarunta gobolka Hawd. Farxadda ciidda awgeed ayaa waxaa kala qayb galay madaxda gobolka iyo degmada Balugubad. Ugu horreyn waxaa goobtaasi kala hadlay maayarka iyo barisaab ku-xigeenka gobolka Hawd oo ku booriyay in la soo bixiyo qaadhaankii wadada isku xidha Balugubad iyo Hargeysa. إنه إنك سيفتي عينه قمنا إيه أفكار حوالي بدل قادني حوالي وين اللي جسوية عبارة وين اللي بحضر من حوالي بعد أكثر حوالي الدواء أسكع ولا يبصير من الله تعالى وحويك البنت سام هناك واحد خلوه يقول ما شاء الله وياه واحد خلوه ده واحد يبصير هيك البنت تضوات السرقة والعرب تاع سلامسين ده بقى لها من أي حاجة هو واحد يكون معاشر كفايتي لا بكر بدون الحمد لله يوحي ورا سريع كان السؤال مسكوا كان كلمته ما شاء الله. عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير. لما شعب غير سوماليلاند oo ugu horeey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo iyo marwada madaxweynaha ku-xigeenka iyo marwadiisa dhammaan golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada oo dhan meel kasta oo joogan gaar ahaan ciidanka booliiska si aad iyo aad ay la shaqeeyay ciidanka asluubta oo taliyahoodii ag taagayaguna si aad iyo qaali ay la shaqeeya ciidamada militariga ee qaranka meel kasta oo joogan kuwa bad meel kasta oo joogan dharcad sirdoon dhan horta ciidamada anigu waan ugu jecel ciidamadan aad u salaamaya wax ciidamada ka soo jeeda marka xiga waxaan salaamaya golaha deegaanka ee gobolkan Hawd waxaan kaloo aad salaan qaali ugu diray golaha deegaanka Salaxley waxaan u dirayaa dhammaan gobolka Hawd Sayla Balacabane Qoton Sabawanaag dhammaan waxaa la ciid mubaarak shacbigana matalo aniga ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wakiilka uga ahay gobolkan Hawd shacbiga reer Hawd waxaan leeyahay waxaan idinka sidaa salaan qaaliya oo shalay laakiin soo faray oo ciid mubaarak oo uu leeyahay madaxweynaha laftiisa waxaan uga ku hadlaya magaca shacbiga gobolka Hawd waxaan leeyahay ciid mubaarak baan ku dhamaantay ku leenahay afka gobolka Hawd uga ku hadlaya waxa kale aad salaamaya barasaabkayga qaaliga Ibrahim Xaaji Xasan oo leeyahay ciid mubaarak meel kasta oo joogaba waxaan aad salaamay familygayga iyo caruurtayda iyo inta ay garaysa magacayga muuqay garaysa saaxiibkayga qaaliga Maxamed Ibrahim Aadan Qabo dhammaantii magacayga muuqay garaysa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بالخير. waxaan marka hore halkan ka salaamayaa waalidiintay iyo eheladayday gaar ahaan hooyaday Iida Cabdi Guuleed aabahay Aadan Ibrahim walaaladay Ibrahim Aadan Ibrahim Nuur Aadan Ibrahim Cabdiraxmaan Aadan Ibrahim nimca Aadan Ibrahim iyo dhammaan habaryarahay Hilma Cabdi Guuleed rag iyo dumarba meel kasta ay joogaan gudaha dibadba waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ku ciida caafimaad bashbash iyo barwaaqo ilaahay sanadkiisana inuu gaarsiiyo nabadgeliyo iyo bashbash iyo barwaaqo waxa kale halkaan ka salaamaya dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka ku nool gobolkan joogay Hawd magaalo madaxiisa Balugubadle waxa kale oo aan salaamaya dhammaan mas'uuliyiinta qaranka ay ugu horeeyaan ciidamada qaranku ay ugu horeeyaan madaxda dalku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo iyo marwadiisa golayaashiisa waxa halkaan ka salaamaya kale gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Ali Xuseen dhammaan waxaan leeyahay dalka inta ku sugan iyo inta ka maqanba nabad qab bashbash iyo barwaaqo Allah inuu gaarsiiyo ciideeda kullu caam antu bil khayr baan leeyahay waxa kale oo aan si salaamaya shaqaalaha isbitaalka TV-da aan ka wada shaqeyno dhammaantood waxa halkan aan ka sii salaamaya asxaabta kale ee iyaguna bahda caafimaadka oo dhan waxaan salaamayaa wasaaradda warfaafinta suxufiyiinta oo ugu horeeyo suxufi Cabdi Samriye oo ah ninkan barnaamijka naga duubaya waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أنا magacaygu yahay Cabdirasaaq Muuse Cali halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan waxaan kan marka ugu horeysa aan ka salaamayaa hooyaday Shukri Cismaan aabahay Muuse Cali Amaan walaalka Khadar Muuse Cali walaalkay Axmed walaashay Ayaan iyo dhammaan ummadda islaamka oo dhan waxa kala bartan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa Aamina Waris waxaan bartan ka salaamayaa dhammaan axsaabta qaranka Soomaaliland dhammaan golayaasha iyo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaan bartan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka ah Soomaaliland iyo ummadda islaamka ay meel kasta joogaan xawlul caalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka ah waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair waxaan halkan ka salaamayaa familygayga aabahay maxamed cabdilaahi xarbi hooyaday shams cabdi dagaal xaaskayga qaaliga ah Nimco Xasan Faarax waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda gol qaran waxaan ka salaamayaa ummadda reer Beligubadle waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciideeda aynu ku gaarno bashbashiyo barwaaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi halkan maanta waxaan ka salaamayaa maanta waa maalin weyn maalintii ciida ciidul fidriga halkan salaam waxaan ugu gudbinayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxa kale oo halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane iyo marwadiisa Aamina Waris madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa dhammaan golayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo halkan ka salaamayaa taliyaha ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ciidanka asluubta meel kasta ay joogaanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay meel kasta oo aad joogtaanba ku ciida caafimaad ku ciida sanadkiisana ilaahay haynagu gaarsiiyo cimri dherer iyo barwaaqo iyo caafimaad taama ilaahay haynagu gaarsiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu Cabdiraxmaan Axmed Xasan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliya iyo ummadda islaamka meel kasta ay joogaanba waxaa kaloo mar laga salaamayaa bahweynta Cable TV waxaan kaloo laga salaamayaa xaaskayga hooyaday dhammaan ubadkayga insha Allah taala waxaan leenahay babshi barwaaqo sanadkiisa ku gaar waxaan kaloo laga salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto gaar ahaan hooyada iyo aabahay gaar ahaan ummadda reer Beligubadle waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair waxaan halkan kala ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda Cabdi Samriye Axmed Naaji Xasan Yuusuf Xasan Aadan Cabdirasaaq Muuse Cali iyo Axmed Cabdilaahi Cismaan dhammaantiin waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ciideeda ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo bashbash iyo barwaaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo ay tahay ciidul fidri waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka ah ee ciidaysa meel kasta ay joogto ayaan marka hore leeyahay ciid mubaarak mar labaadkana waxaan salaamayaa dadka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo wax kasta ay yihiin siiba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siraayo iyo haweenadiisa iyo madaxweyne ku-xigeenkii Cabdi Amaan Saylici iyo xaaskiisa iyo dhammaanba mas'uuliyiinta qaranka waan salaamayaa cid kasta oo magacayga garanaysa ama aniga garanaysa anigoo ah dalmar Harun oo jaamac waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxa kale oo iyagana salaam u dirayaa ciideed oo farxad leh ciidamada qaranka ee difaaca ku jira iyo kuwa gudaha ku jira waxaan salaamayaa eheliyada oo dhan waxaan salaamayaa reer Beligubadle gobolka Hawd khaasatan xarunta gobolka ee reer Beligubadle rag iyo dumar caruur iyo ciroole madax iyo mijo dhammaantood iyagana waan salaamayaa intaasana dee eebeedinkeeda leeyahay anagu ka oranayaa ciidul fidriga